magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu dilay wiil Soomaali Canadian ah laguna magacaabi jiray Faysal Bashiir Xiis Qaliif. Faysal waxaa laga helay hoygiisa asiga oo meyd ah, dhaawacna uu ku yaala dhacdadan waqtii afraad ee ka dhacda dalka Canada. afartii maalmood ee lasoo dhaafay kadib markii habeen hore wiil dhalinyaro ah asna lagu dilay istiga magaalada Toronto kaasoo asiga dilkiisa loo adeegsaday rasaas. wiilkaas ayaa asna lagu magacaabi jiray Yuusuf Xaaji kaasoo dhalay injineer Axmed Xaaji. dhacdadan oo ah tii ugu dambeysay ee soo wajahda Soomaalida ku nool dalka Canada. Soomaalida ayaa iyaga soo gaaray dalka Canada intii ugu badneyd sanadii 1991 markii ay meesha ka baxday dowladii dhexe ee Soomaaliya. meesha aanu taagannahay waxaa la yiraahdaa 2067 Islington Avenue waana halka uu ku geeriyooday Faysal Bashiir Xiis Qaliif. maraan isku daynay inaan xiriir la samayno xarunta booliiska magaalada Toronto waxa ay TV-ga u xaqiijiyeen in ay weli ay wadaan baaritaan weyn oo ku saabsan isla markaana ay warbixin ka soo saari doonaan. Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa iyaga inta badan aan ka midaysan xagga fikirka sida ummadaha kale ee ku nool dalka Canada. dhacdadan ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen oo ah imaamka masjidka weyn ee Khalid bin Waliid ee ku yaala galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل dhacdadaas xanuunka badan wayna soo gaartay wiilkaas in la dilay magaalada Toronto lagu dilay runtii macluumaad dheeraad ma hayno marka ugu horeysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay waalidkiina allaha ka sabir siiyo wiigii horena saasoo kale wiil 27 sano jiraan duugnay sanadkan 2600 waxaan dhihi karaa waa kii 8aad ama 9aad oo masaajidka lagu duugayo waa arin runtii musiiba oo ku habsatay community-geena ilaahayna aan ka baryayno inuu subxaanahu wa ta'aala arrinkan xal iyo xal noo keeno marka arrinkan runtii waxa looga bixi karaa inaan community-geena isu nimaadno meel uga soo wada jeensano ka shiro isu nimaadno marar badan baa baaq aan bixinay runtii ka masjid ahaan in community-ga odayaasha mutacalimiinta haweenka culimada la isu yimaado arrinkan soo noqnoqday marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma sii sugnaayo ma sii fiirsanaa maalin walba carruurteenna inaan qubuuraha geenno meeshaan runtii uma aanan imaan markii ugu horreysay inaan carruurteenna ku duugno yacni maxaan u nimid nolol iyo maaragtay iyo arrimo kale laakiin dhacdooyinkan dhacaya waa arrin laga naxo oo aad iyo aad maaragtay looga xanuunsado waxaana lagu xallin karaa inaan midowno oo isu nimaadno meelna uga soo wada jeensano waxaa nooga sii xanuun badan dhiiggeenni inuu maanta raqiis noqday oo maaragtay dhallinyarada Soomaaliyeed marka la dilo in la leeyahay lama hayo oo booliska markaan la jiray ay leeyihiin mushkiladan xataa waxay leeyihiin idinkii baa nala shaqaynayn idinkii baa isqarinaya laakiin runtii waxaad moodaa haddii dad ummadda kale oo haddii la dilo isla markiiba boolisku inuu qabanayo qofkii dilay laakiin annaga nala ka arkay yani maaragtay marka waa taasna xanuun kale nagu sii beeraysaa waxaana keenaya kala qaybsanaanteena iyo tafaraaruqeena haddaan saan ku sii soconnana haddee 100 iyo dheeraad ka badan baa la dila haddana يعني لما هيو ماركتي إن بدن لما قبن من الله هيو وأنا الرادين يا مر والبنا اللي هذا بس إذا أم بنكسي سعنا مسوا حما قبصنا وأرن أطال رنتي بلشدنا يجالدنا الصوماليد لكن هذه الجار مسجدها وحنكون باقينا ورانا السنة ما إنه أقويهم بان لنا هاي dad wax garad baan leenahay culum baan leenahay arrinkan hal meeran uga soo wada jeensanaya adaa mudan ma shaqlo saal wada socotaan waxa masiibooyin isdaba jooga baryahan dambe naga haysataa dhalinyarada oo dil aan caadi ahayn isu dila ama mataqaanaa isdaba taagan wixii dilayna ilaa hadda aan la helin lagana wardoonin marka hore waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa telefishinka Universal Television oo mar walba u taagan in uu danaha Soomaaliyeed iyo wax allaale iyo wixii mataqaanaa community-ga faa'iido ugu jirto iyo dhibaato iyo wanaagba iyo horumarka jaaliyadda garab taagan waxaan rajaynaynaa inaan la kulanno qolooyinkii ama sirdoonka ahaa si looga daba taga arrimahan badan oo Soomaalida iyo dhalinyarada wada daba taagan booliiskuna uusan ilaa hadda waxba ka qaban taasna waxay cadeynaysaa in community-ga Soomaaliyeed ee Canada degan ay kala daadsan yihiin kala daadsanaantaana ay keenayso dhibaatooyin xag dhaqaale xag naf iyo xag bulshada marka dagaalada wadanka ka jira dhibaatooyinka wadanka ka jira faqriga shaqo la'aanta dhalinyarada haysata baa sabab u ah in
dhibaatooyinkan ay yimaadaan iyo hal representation unity oo community aynaan haysan. waa dhacdadii sideedaad ee soo naqatay sanadkan gudihiisa sida uu shaaca ka qaaday imaamka masjidka weyn ee Khalid ibn Waliid Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen. daawadayaal sidaad la socotaan wiiga la soo dhaafayna waxaa magaalada Ottawa oo ah caasimadda dalka Canada ku geeriyooday sidoo kale 2 gabdhood oo walaalo ah kuwaasoo mar qura geeriyooday. mahad carab oo cali telefishinka Universal magaalada Toronto ee dalka Canada.